dhismahan si casri ah loo dhisay oo ka kooban laba dabaq ayaa waxaa xafiisyo shaqo u noqonayaan wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland iyo taliska ciidanka booliiska ilaalada dekedda Boosaaso waxaana ku deeqday hay'adda UNADC halka dhismahan ay dhistay Al-Bashid Construction Company qaybaha ka kooban tahay dhismahan casriga ayaa waxa lagu soo wareejiyay safiirka dalka Denmark ku fadhiya Soomaaliya madax ka socotay hay'adda UNADC iyo UNBOS taliska ciidanka ilaalada dekedda Boosaaso waxaana si rasmi ah u xarig jaray safiirka dalka Denmark ku fadhiya Soomaaliya iyo wasiirka dekedaha gaadiidka badda Puntland Cabdullaahi Jaamac Saalax shirkadda Al-Bashid Construction oo dhistay dhismahan ayaa si rasmi ah ugu wareejisay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland iyo taliska ciidanka booliiska ee ilaalada dekedda Boosaaso anoo ku hadlay magaca shirkadda Al-Bashid Construction Company maanta waxaan wareejinay dhismaha kan ay wadaagaan wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda iyo booliiska dekedda muddo 9 bilood ah ayaan dhismahan soo wadnay maanta waxa farxad noo ah inuu si guul ah oo ay hawshaasi ay ku dhamaatay wasiirka dekedaha gaadiidka badda Puntland Cabdullaahi Jaamac Saalax ayaa sheegay in ay maanta u hirgashay mid ka mid ah himiladiisii waxa weeye guriga ugu qiimaha badan ama ugu qaalisan Boosaaso maanta ama all Puntland oo hadday noqoto safety-ga iyo hadday noqoto structure-kiisa dhismihiisa asaasiga ah way ku guuleysteen guriga inay dhisaaniin waxa gurigan consultant-ka ahaa UNOPS oo talaabo walba la qaadayay follow up ku sameynaysa ama la socotay hay'adii bixisay oo UNODC oo ah hay'ad wax badan geysatay ama calaamado badan kaga tagtay Puntland sida jeelasha gurigan jeelka Garowe iyo kan Boosaaso oo adogteen inay ugu fiican yihiin jeelasha Soomaaliya ama East Africa marka loo eego jeelasheeda Ahmed Sham Hon Cable TV Boosaaso